geela markuu daraaran yahay laabanin dugtaaye laabanin dugtaaye laabanin dugtaa geela markuu daraaran yahay laabanin dugtaaye laabanin dugtaaye laabanin dugtaa markay diriiriyooran geeduna dajoogan dalawada irman baan kugu diidin nirigto godol dabacsanaatee waxaan joognaa golihii geela waan maanta kormeer u nimid geela hoos yimaada degmada Buurtile gobolka Nugaal geelaas oo geed aad iyo aad u tiro badan oo barqamaal ah qayb kamid ayaan saaka kormeer ku nimid annaga iyo Social Media iyo Cabdicasiis runtii waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu mahadnaqo abaartii baanayd ee xoolaha iyo dad iyo dunyaba haysatay Ilaahay naga saaray maanta inaan dhirtan quruxda badan iyo geelan quruxda badan joogno runtii geela waxa ay kamid yahay waxyaalaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu amaanay oo quraankiisa uu kaga hadlay waxaan ku wacyi gelinay dadka deegaanka ee xoolahan haysta inay kasakada ka bixiyaan si Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ugu barakeeyo waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada geelan haysata quruxda badan waxaan kale u mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeed kuna dhiirigelinaynaa inay geela maxaan ku la dhaqdo maadaama ay Soomaaliya tahay xoolo dhaqato inaynu xoolaheena dib ugu noqono waxaan kale ugu baaqaynaa bulshada halkaan degan inay geedaha ilaasho oo dhirta jaridda laga ilaasho sababta geelan quruxda badan waan ogeyn dhowr bilood ka hor waxa uu ku sugnaa maantana waxa uu daaqaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahadaas uga sugnaatay waxaan ku dhiirigelinaynaa wasaaradda maxaan ku rahaa xanaanada xoolaha Puntland inay xoolaha madho oo xoolaha jiran la fiiriyo oo la daweeyo dawada dhacday ama sunta laftigooda waa ka wacyi gelinay inaan xoolaha sunta la marin oo laga ilaasho wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolahana waxaan ka codsanaynaa iyagoo iskaashanaya in la maro deegaanada Puntland iyo deegaanada Buurtile hoos yimaada waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada geela haysatay oo runtii saaka nagu marti qaaday oo nagu soo dhaweysayna waxaan leenahay Allah inii barakeeyo xoolihiina iyo caafimaadkiina Allah inii barakeeyo aad bayna u mahadsan yihiin Social Media oo markasta ku hawlan wacyi gelinta iyo horumarka ka socda degmada Buurtilana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa u jeedaano geel hadda la lisaya waana waxaynayaan gaawihiina waa kan oo xoortii leh waa u jeedaan ma sha Allah waa xumeynayaan ma sha Allah waa u jeedaan marka waxaan leenahay dadkan iyo dunyadan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo